بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 20ka bisha tobnaad 2019 madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu kormeeray isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso waxa uu kulan la qaatay maamulka isbitaalka oo madaxweynaha u soo gudbiyay warbixin maqal iyo muuqaal ah oo ay ku soo bandhigayeen xaaladihii kala duwanaa ee isbitaalku uu soo maray shaqooyinka uu bulshada u hayo iyo qorshayaasha u yaala madaxweyne Dani intaas kadib waxa uu booqday qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso wuxuu arkay shaqada halkaasi ka socota bukaanka jiifa iyo sida shaqaaluhu ay heegan u yihiin waxa uu bogaadiyay shaqada adag ee dadweynaha reer Boosaaso iyo guud ahaan gobolka Bari ay u hayaan maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso wuxuu madaxweynuhu sheegay in siyaasadiisa ay meel sare uga jirto arrimaha horumarinta arrimaha bulshada oo ay qaybta koowaad tahay horumarinta caafimaadka kormeer kale ayuu sidoo kale madaxweynuhu maanta sameeyay waxaana uu booqday xarunta gobolka Bari ee magaalada Boosaaso halkaasi oo maamulka gobolka kulan kula qaatay kormeerada uu madaxweyne Dani sameynayo intuu joogay magaalada Boosaaso waxa ay qayb ka yihiin oo koorgelida xaaladda guud ee gobolka iyo degmada iyo kulamada dadweynaha oo iyana dhinac socda kuwaasi oo guud ahaanba qayb ka ah isku duubnida guud ee dadweynaha reer Puntland aad iyo aad buu mahadsantiin